iyo guddida uu la socdaba ku soo dhawaada degmada Boon ma aha meel aad tagteen oo aad kala tagteen magaaladiinni un baad timaadeen ma aha magaalo kale waa magaaladii waxaad timaadeen ku soo dhawaada waxaan ugu oran lahaa suldaanku ma aha anigoo dhinacna reer Boonka ah dhinacna ku hadlaya ama guddida ama isaga ma aha suldaanku suldaan qabiil suldaan reer hebel ma aha waa suldaankii ummadda Soomaaliland weeye isagana insha Allah hawsha marka horeysa waxaan salaamayaa dadkan reer Boon ee sida hagrashalaanta ugu soo baxay suldaankoodii oo quraanku wuxuu ka bilaabmaa alif markaa suldaan Abubakar cilmigooda wuxuu ka bilaabmayaa Boon dabadeed wuxuu ka gaadhay raaya qaranka Soomaaliland oo dhan waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka suldaanka oo la soo dhaweeyay oo fadhiistay isagoo tiijooga ugu qaatay maana tuka oo fadhiga ah oo ka kooban yani quraanka kariimka waxa lagu wanaagsan la akhriyo iyo sharafta ummadan Boon ee halka maanta u taagan waxaan leeyahay adiga iskale ogowna in maxaan ku dhahdaa tahay suldaan ka bilaabmaya alf Boon sii soconaya oo gobol sii soconaya ilaa iyo qaran sii dhaafi kara ilaa iyo caalamka caalami kana duwanaan kara salaadiinta kale ee meelaha dee laga soo waxeeyey inkastoo inaas qof suldaan ama oday aflagaadeey rabin haddana isagu waxaa filaya inuu ka duwanaado aragti ahaan waxqabasho ahaan muuq ahaan Boonna ha ogaada inay tahay xidhadiisii qofka Boon ee maanta ka gabaday halka inuu waayana qaanbu qabaa bisjaal ama hada oo kale weeyii wana lagala xisaabtan salaamaya suldaanka iyo waftiga uu hogaaminayo iyo dhammaan martasharafta ka soo qayb gashay xafladan aad ka wanaagsan gaar ahaan waxa salaamaya culimadiinka odayaasha iyo dumarkaba oo wada salaamaya lambahan dhalinyarada ka soo qayb gashay aniga ku hadlaya afka haweenweynaha hablaha dhalinyarta ah waxaan leeyahay suldaan adiga iyo waftiga hogaaminaysaaba ku soo dhawow gacmo furan qalbi furan iyo niyad wanaagsan inta ku soo dhawaayaan kulana waxaan kulanahay waxa ku soo dhaweynaya dhammaan dadweynihii ku dhaqnaa degmada Boon cid markaa ma xidhnayaan kulanahay waxaan kulanahay waxa ku soo dhawaataa gacmo furan sidaan hore u sheegay waxaan kulanahay kaliya inaan mahadnaq idinka celiyo soo dhaweynta ballaaran ee ay ka muuqato walaalnimada iyo midnimada iyo isku kalsoonida aadka u baaxadda leh ee rag iyo dumar aydan u kala harin oo annagana nasiinaysa inaan kalsoonidaas oo kale qaadanno waan idinku ducaynaynaa dhaqanka wanaagsan ee aad muujinaysaan ee midnimada waxaa kaloo ognahay oo taariikhdu qoraysaa Boon inay tahay meel taariikhi ah oo waxyaalo badan oo dalka iyo dibaddiisaba gaadhay ay hooyo ahayd waxaan idinku qorinayaa in sidaa iyo dhaqankii aad ahaydeen ee bacallinka ugu ahaydeen markay Soomaali midka ahayd inaydaan sii daynin iyo wanaaggii iyo dhaqankii fiicnaa ee aad lahaydeen midnimada aad ka tilmaanteen halkan ee aad ku sifayseen beesha dhagax joog haa markhaatiga waan idin furaynaa way jirtaa marti kuma nihin oo waan ognahay inay uliyadiiskeed tahay Boon iyo nawaaxida lagu dhaqay ilaahay haydinadka iyo midnimada ilaahay cidkana
war khayr qaba oo dad iyo dunyada soo dhaweyn boon haddii laga doonayo leegama reer boonsanana marana soo dhaweyn talabaad aad baan ugu mahadnaqayaa anagu wakiilka Suudaanka sida fiican oo u male u dhow sidii anagu aan goolkaga tagnay oon markaan joognay ma lahayn reer qola ma lahayn abtirsiin ma lahayn meel qola la wada fadhiisanayay dadku isku mid bay haayeen waxa looga jiray inta tarbiga marka laga yimid ee anigu wax la iga iibsado waa ninkan mana dumarka geeru wadaabiyay laakiin waxaan maleeyaa Suudaanka inuu midin lahaa inuu ka yahay sidaa darteed soo dhaweynta aadan u kala harin waan idinku mahadnaqaynaa kadambow waqtigu uu gaaban yahay dad badanna way hadleen suldaankeena uu dambeeyaa waxaan suldaanka ugu ducaynayaa ilaahayna aan u weydiinayaa xilka la saaray inuu fududeeyo idinkan waxaan idinka codsanayaa dadku markay wanaagsanaadaan yay boqoradu wanaagsanaadaan reer boon wuxuu qabo reer boon iskuulka la caawi reer boon laakiin reer boonna maxaa laga rabaa inay reer boonkeen ka tagnin noqdaan reer boonkii aan ka go'aangeyn inay noqdaan oo isku mida oo wax isa siiya oo isjecel oo meel ka wada duula sidaasaan idinkan idin weydiinayaa dadkuna siduu iska dhigo un weeye waxaa laydinka beenad ku dadaashaan inaad isa saamaxdaan oo wax ka qabsataan sidaasaa ilaahayna idinku naxariisanayaa hadalkan waxba badin mayno cadeeduna way kulushahay salaadiina way gaadhaan u malaynayaa afhayeenkii Suudaankii rag badan baa iga dambeeya dhammaan waan idin salaamaynaa waan idin mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annaga waajibkayna saaran waxa weeye aayaddii qur-aankii waadiicullaha waadiicu rasuula wa ulul amru minhum inaan awlo markaa aan doorannay aan aqballo oon karaamayno oon amarkiisa raacno isagana waxaa saaran adeegintii ummadda kalaamada iyo xilka saartay uu adeegi lahaa iyo islaamku oo dhammo hadalkaygana waxaan kaga baxayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta isku xidhka telefoonka inaan awoodeyda saaran horta doonayaa dibaddan aad uga shaqaynay muddo dhexe dhow sano laga soo wareegay inaan sabarooga isu keeno dhibaatooyin badan baa nagala soo dirtay runtii ninka soo fiicnaanaysa markaasaa jilibada inaan ka soo bilowno markaan jilibada soo hagaajino iyadoo hagaagsan dusha sidaas kugu wada timaado ayaanu barnaamijkii u bedelay tiina way shaqaysay waan fiicannahay sidii dhagax joog ahaan jiray bay dhagax joog keliya mooyaane sabaroon oo dhan meel uu dogo iyo Somaliland ba insha Allah wada noqonayaan meel kastoo sabaroon dogo Etoobiyana ha noqoto dad badan baa leeyahay Djibouti ha noqoto uriya diirkeed sidii aan uga shaqayn lahaa horta waxaan ku dhaanu ku dadaali doonaa taasana dib uga doontaan maantadana waxaan ku hadlayaa magac badan ee dhulkeena imika u badan dadkii oo weeraanay oo iska sii yaryaraadaan waxaan doonaynaa future-kooda inaan shaqo iyo iskuulaad iyo noloshooda ka wada shaqayno iskuulka gab ku yaalla inaan cabrimaan doonaynaa uu noqdo iskuul waxaan ku idhaahdaa boodhaba oo fiican inuu noqdo ayaan doonaynaa iskuulkan boonna insha Allah waan soo dhammaystiri doonaa inta ka dhiman haddii ilaahay yidhaahdo iskuulle kaloo boodhaba oo fara badan oo aan u baahnayna way jiri doonaa waayo arday badan oo waxay jirta markay tuulooyinka iyo ka soo baxaan dugsiyada dhexe secondary-ga waayo oo dadka halka aqoonta kaga tega inta rajooyinka aan sheegay badanaa dhalinyarta ayay u badan yihiin laakiin waalidkuna waa ku dhalin dhalinyarta weeyaan rajooyin fara badan baan qabaa walaalayaal haddii dadkeenii kii dabadda joogay iyo gudahaba systemka caawasada mar ay tahay iyo mar ay walaaltinimo tahay haddii shuuska iyo laga dhex qaado cilladaha yaryara beryaha dambe ina soo galan inaan hiddaha u lahayn dad isir wanaagsan oo hidda fiican baynu runtii nahay aad u hidda fiican baynu nahay dad isirkana aad u ilaaliya baynu nahay dad waxaan ku idhaahdaa isirnimada ina wanaaggeedii ay wadato wax lagu faanana tahay baynu horta nahay markaa taana wanaagga aynu leenahay isirnimaduna allaha inoogu wado roob ugu ducee intaa haddaan بشيء بدن يمر بدن باكو سو نبتونا ويجري دوتا هدي لا يراهدو دقاقيه بدن oo gaar ahaan dhalinyartooda qabadoona way jiri doontaan waxaan dhiga ballan qaadayaa anigu inaan midayntaas roonka iyo midnimadaas waan midaysanahay dhibaatooyin weli inoo dhaxayaan waxyaabo yar yar oo meel soo ka abaa jiray oo kuwaasina waxaan ku raahdaa iska sii raadgo ay aswaata midnimada insha Allah ka shaqayn doono ta kale waxa weeyaan ugaaskeeni ayaa inoo imanaya ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi ugaaskeena ay walaalayaal
sabaroonku waxyaabaha badan ee uu tabayey ee noloshiisa ka dhinnaa ka ugu horta ka ahaa markuu inoo yimaado markaynu dhisanno markaynu soo dhawayno markaynu caleema saaranno ducadeennii baa walaalayaal number 1 isku mid noqonaysa hal qof iskugu imanaysa awal waxaad moodaysay ducadeennaasi inay kala daadsaneen oo ay maxaan ku dhahdaa dhinacna roobdoon ka akhriyi jireen dhinacna iska aamusnaan jireen moodaysay tii hadda markuu ugaasku yimaado walaalayaal meesha way ka baxaysaa ducadeennaa midoobaysa kartideennaa midoobaysa maxaan ku idhaahdaa waxwada qabsigeennaa midoobaysa qaadhaankeenna midoobaya nabadgelyadan iyo ammaankeenna ilaashigeeda midoobaya tixgelinta maxaan ku idhaha beelaha inala deganaa inoo hayaan ayaa kor kacaysa markaa walaalayaal taana waad ku fikraysiin waad ka qayb qaadanaysiin insha allah waa mid wanaag badan inoo leh aad baad uga qayb qaadanaysiin adceeddaad aad ugu daasheen maxaan ku idhaahdaa dhalinyarta dumarka gabdhaha adceeddaad aad ugu daasheen